qabaysaa waxaa isku dhajistaa lixdankii iyo 26 juun iyo 1 luulyo mar haddii labadii midoobay halkaasaan ku soo xariijiyay goormaan la baanay lixdankii lugoodiina daysay 26 juun goormaan loo 6 saac goormaan libaanay 1 luulyo loo gudooday هذا هيسكا أي تصبح بي وهيسك يقول شيء لا يقول أنا هلكا كنتك شيء يا لا يقول أنا مسرع أنا هلكا كنتك شيء كل هنا قال لا هب الله فقلين مينه وهم هاي اليوم يلا صار إيوه ده كتير ما هان في ما ده ما هان كتير ما هان صار الله فقلين يا الواد ده أنا كله قبيلة وادران واحد محايد داوم ماله كتران دومية حنون كتران عذرة وحدلا كتران وداوم ماله برشلة ويدورسا واحد لك تعكس ملا واحد دمسا همام واحد دمسا إليس حقا يلتا قارنتا دول لغوغي رسا واحد كتب دا علمك واحد بستا جهلك وفكيدنا وادقا محاكم مرقا haddayna wacdana rabbaa noo diri lahayd diintay ku caddaan lahayd dadkayga waxa ballana dardaaran intay karaan dibluhu waa tabinayaan durbaan garashow diyaan soomaaliya qabyaalada ka xorow qabiil ka xorow waa habeen farxad leh waa habeen qiiro badan waxaan isleeyahay caawa inay la mid tahay كود اللوليو كون إسرائيل بقول لحدنكي دور عشرة كهر وحن أود بلدقني لحي لواتنكي جون ما أنتنا وحن أود بلدقنا مالنتي من دماغ الصوماليات يحرية قبل الله كونفريد ويكسو وريكتي كنتون يسدسنو همباليو عيد وناكسن جود أهان ومدى الصوماليات ملك ستيجوغان ومد والبوحيلة هاي تاريخ أستان يو مالمو hayaankooda qarannimo uu ka soo bilowday taariikhda jiilka ka dambeeya uu u gudbiyo dareenka wadannimo iyo xilka qarannimo uu noqdo mid qori isku dhiib ah oo ku dhisan hab dimuqraadiyada ummadda Soomaaliyeedna waxay soo martay hayaan dheer oo ka soo bilowday waqti aad iyo aad u fog marxalado badanna ay soo martay mirihiisana la helay 26 juun iyo 1 Juulaay 1960 sidaas awgeed xuskan iyo dabaaldegan macnihiisu uu weyn yahay waxay tahay inaan dib u jilecno aan dib u milicsano hayaankeennu halka uu ka soo bilowday jidka dheer uu soo maray halka maanta uu joogo iyo himilada mustaqbalka ee aan higsanayno insha Allah waxa xusuus mudan meesha aan hayaanka uu ka soo bilowday ay ahayd meel aad iyo aad u qurux badan iyo maalmo aad iyo aad iyaguna u qurux badnaa halgan sharaf leh oo dhalay xornimo midnimo iyo qaran Soomaaliyeed oo mustaqbal horumar la tiigsanay waxa kale oo inoo muuqanaya in hayaankeennu uu ka mid ahaayeen maalmo aad iyo aad u adag oo u dhib badnaa xambaarsanaana dhibaatooyin fara badan loona baahan yahay inaan casharo aan ka baranno dabaaldegu waa shidaal aan qaadanayno ina tusayana in dadka qaran xor leh calan iyo cod buuxda ama cod maxaan ku raahdaa cudud leh abuuray in ay awood leeyihiin inay mid ka wanaagsan ay abuuraan oo ah dowladnimo iyo qarannimo buuxda xuska maalmahan gobonnimada wuxuu na barayaa dadkii hore shalay ay gacmaha isu qabsadeen ay dhaliyeen xornimo haddii maanta aan isqabsanno gacmaha inaan dhalin karno xornimo mid ka wanaagsan mustaqbal wanaagsan aan ku faanno jiilka naga dambeeyana ee naga dhaxlaan waxaan hubaa in jacaylka walaalnimo ee ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed uu yahay mid aan weligiis duugoobayn dhib kasta oo la soo maro ma baabi'in karo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaa jira wadamo badan
oo dhibka aan soo maray haddana weli aan lumin midnimadoodii iyo qarnimadoodii aan lumin walaalayaal maanta waxaa xusid mudan in ummadda Soomaaliyeed ay yeesheen dawlad sharaftoodii iyo karaamadoodii u taagan habeen iyo maalin inay soo celiso waxaan nahay dawlad ku howlan hirgelinta iyo xoojinta ammaankii iyo nabadii dalka Soomaaliyeed u lahaan jiray waxaan idin sheegayaa sidaas darteed waxa dawladdaani aqoonsan tahay in heerka aan rabno inaan gaarno aynan ku gaari karin kala qaybsanaan iyo midnimo la'aan wada jir midnimo iyo cududeenna aan sugeyno ayaan ku keeni karnaa waayaha cusub ama aan kula tartami karnaa caalamka taas ayaana waxaan ku noqon karnaa waxna kula qaybsan karnaa caalamka iyo dawladaha gobolka aan ku wada noolnahay walaalayaal dhowr cisho ka hor waxaan dabaaldegan waxaan idin sheegayaa maanta waxaan maraynaa meeshii aan maraynay 60kii waxa ay ku kala duwan yihiin oo kaliya maanta xaaladeennu waxay taagan tahay meel dadkeennu ay ku kala qaybsan yihiin meel dalkeennu uu ku kala qaybsan yahay meel ay jiri karto faragelin ka faa'iideysanaya kala qaybsanaanshaheena waxaa loo baahan yahay in aan ka baranno wax badan xaaladda Soomaaliya maanta ay ka jirta waxay la tahay waqtigii waxaan joognaa midnight oo aan u kacenno inaan saarno calanka insha Allah berri baan dhamaystiraynaa khudbad inta ka hartay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh